waxaan doonayaa inaan maanta ka hadlo arrintan maaragtay power sharing-ka ama saami qaybsiga waa la ogyahay macnaha ay ku fadhido iyo taariikhda soo marayba waa lala socdaa. ugu dambeyntii markii ay saddexda xisbi qaran ay soo saareen maaragtay heshiiska ay gaadheen, runtii waxaa halkaa nooga muuqatay inaan loo soo jeedin wax power sharing ama saami qaybsiga inaan loo jeedin ayaa halkaa nooga muuqatay. marka arrinta halkaa maraysa ayuu madaxweynuhuna mar uu hordhigay baarlamaanka xeerkii oo ay weliba 5 xeer ku hoos dhafan yihiin oo ay kootooyinkii ku jiraan oo kii komishanka ku jiro ayuu baarlamaanka horgeeyay, iyadoo weli golihii wakiilada hor taalla ayuu mar labaad intuu ka soo qaaday maxkamadda u gudbiyey. haddaba waxaan halkan ka caddaynayaa waad maqlayseen guddoomiyihii maxkamadda sare oo lahaa muddo 15 sano ayaa qodobkan laga dhaqaaqinaya. waxaa kaloo iyadna xusid mudan garyaqaanka guud cabdisamed maxamed maal oo ah runtii inan boorama ku dhashay oo isaga oo weyn u tegay halkaasi inuu isla doonto dacwadda aan u gudbinay waxa weeye qodobka 12aad firqadiisa koowaad baa ka hormarinaysa dastuurka. war waxaasi wax caqliga gelaya maaha. qodobkaasina ma hortaagna doorashada ee waxa hortaagan fulin la'aanta xukuumadda ayaa hortaagan qodobka inay doorashadu qabsanto. waxa hortaagan awood maroorsiga ka jira ee aad isku bahaysanaysaan ee hadday garyaqaan guud tahay, hadday guddoomiye maxkamad sare tahay iyo hadday madaxweynaha tahayba. inkastoo madaxweynuhu dalka ugu sarreeyay uu dastuurku awood badan siiyey, ma aha dastuurka in loo isticmaalo in lagu dulmiyo saluugga ay tirsanayaan gobollada maaragtay galbeedku gabiley awdal iyo sale. marka waxaan ugu baaqaynaa maaragtay in arrimaha guddoomiyaha maxkamadda sare waxaan u diraynaa baaq. waxaan leenahay maxkamad ma dhaxasho. marka uu leeyahay garyaqaanka guud ee dastuurka ka hor imanaysaa ma maxkamadda xukunkii maxkamadda yaallay ayay maxkamad kaloo la midii burin kartaa? waa maya weyn. arrinta dawadeedu waxay tahay in talo qaran laga galo oo madaxweynuhu isagaa hoggaanka dalka ah, isagaa dastuurku awood badan u siiyey inuu dalkan u maaragtay u gogol xadhi sida ay doorasho u qabsoomi lahayd ee uu qodaxda ugu guri lahaa ee caqabadaha hor yaalla uga qaadi lahaa. waa arrin dul taale weeye madaxweynaha. arrin maxkamad u baahan maaha, maxkamad hore u soo martay. waxaa wixii ka baxsan waxay noqonaysaa un inaad difaacaysaan kuraasta 60ka ku dhow ee ay beeshiinu ku fadhido inaad difaacaysaan ayuubay noqonaysaa. waxaan halkan ambaaq uga diraynaa beesha caalamka inay arrimahaasi la socdaan oo aanay ahayn inaanay yacni sharciyaddii aanay shaqaynaynin, dastuurkii aanu shaqaynaynin, cadaaladdii ayna shaqaynaynin, in maaragtay awood maroorsiyu jiro ayaan la socodsiinaynaa beesha caalamka. waxaa kaloo doonaya inaan halkan kaga hadlo wasiirka gaashaandhigga ee iyadoo dalka wasaaraddii beeruhu ka jirto maamulkii gobolka awdal boorama joogo intuu halkaa hargeysa ka dhaadhacay uu GPRS qaatay uuna maamulkii beeraha soo marin uu yidhi beeraan u goynayaa cid gaara. arrintaasi waxay daaran tahay waa hawl xukuumaddu ay waddo weeyi oo laysaga hor keenayo beeraha ciise iyo geedbuursi ee wada degan gobollada awdal iyo sale. laakiin dad sidaa ku kala tegaya maaha. waana arrin la macnayn karo lana fahmi karo wax looga dan leeyahay. waa arrin lagu baabi'inayo cadaaladdarrada meeshan taalla iyo saami bursiga meesha yaalla ee laga cabanayo arrin lagu baabi'inayo weeye. marka waxaan ugu baaqanaa madaxweynaha inuu arrin ka beddelan u la yimaado. madaxweynaha ciyaaro kale keen baan leenahay oo ummaddu yacni u wada cuntanta oo laakiin waxaan waa wax muuqda oo cad in aanay meeshan dawlad wanaag iyo cadaalad ayna ka soo socon wax cad weeye. السلام عليكم.